oo danaga dhigtay state wixii waan state ka dhigi maayee waxba noqon maaysaane ee waxaan ku darayaa wiil Puntland baan ku darayaa waan ninka hawaysanaya een garanin dadka suuqa hawaysanaya intuu sool jaro iyo buu hoole inuu ku daro ma jeerteeniya halkaas ortalina marinaya inagoo 25 sano dawladaheed ayaa maanta inaan ka yar ee magaranaysa magaalo Soomaali way burburtay midba gurigiisii buu tagay magaalo u taga male magaalo Soomaali ku taalo ninkaasi oo badaha oo ka taga xamar hayn karaysa ma jirto waa taandeereerkood hal say u tagay kiiba maanta doonaya inuu shirku qabto lacag ku bixiyo buu hoole oo ila cali khaliifna waa riday heshiiskiina waan ka baxnay waxaan ku darsanay ma jeerteeniya horta halkaas ayna marinaya maanta waxa weey hadaba maxaynu halka la inoo marinayaa weey waxa weey 25 sanadood dawlad baynu ahayn maalin baan wada qabsanay Eritrea iyo Ethiopia iyo Soomaaliya maalin bay saddex dawladood baan samaysmeen maanta wada ogtay Ethiopia halka mariso waa super power Eritrea waa aragtay halka marisa inaguna maanta waxa weey dawakayna ka yara farmaajeen Soomaaliya aan jirin madaxa laga dhigay ee lagu isticmaalayaa in dalka Soomaaliya lagu boobo la waxaan ka shariyaa Soomaaliya sanaag baan shariyaayo oo ku daraya ma jeerteeniyo xuduudii baan bilaabayaa sidii super powerkii ayaan Soomaaliya xuduudeed burburinaya inaga la inaga arkay walaal hadaba waxaan sheegnaa walaalayaal anigu waxaan u galay siyaasadda waxaan u garaadeysay Soomaaliya oo aynu ka ilbaxsanahay oo ka tacliin badannahay maalinteenu ku darsanay 5 iskuul baan lahayn oo farsamada ah kii macallimiintaan lahayn kii kariinkaan lahayn karaaninka kii waxa la trainingskaan lahayn kii TTC daan lahayn kii nerskaan lahayn 5 professional ay lahayn maanta aan mid aan haysan iyagu mid qura ma lahayn secondary ma lahayn waxay lahaayeen meel la ilaaho Allah cagaaran oo masaaru ay ismasaaran jirtay waxa la dhisay laba iskuul oo high school midna la fooruha midna banaadir imtixaan baa la qaaday boqolkiiba 9 waxaan qoray waqooyi aan noqday maanta waxa weey way inaga tacliin badan way inaga dhaqaale badan way inaga ilbaxsan yihiin af Soomaaliga inagu aynu ku hadalnay BBC da radio Hargeysa radio Soomaali weheli maanta voice of America waa aragtay iyaga haysta BBC waa aragtay af Soomaali soo ugu ciyaarayaan waxa hoos inoo dhigay ee ina dhaafiyay waa awoodii dawladnimo weey 25 kan sano in joognay dawlad hagaagsan ma yeelan dawlad u yaal bayna ahayn semi government yaana anu waxaan doonaa insha Allah ta'ala ragii ku jiray ilaa 93 siyaasadda ku jiray ee marna wasiiru ahaa udub marna kulmiye u ahaa haddana galay asxaabta kale inaanu baarkin gareynaa doonaa insha Allah ta'ala waxaanu soo saarnaa dhalinyaro aqoon leh marka fikireen war Soomaaliya maxaa dib u dhigay war maxay Soomaaliya u socon weyday waxaan ogaaday inay wuxuba tahay aqoon la'aan oo aqoontii naga tagtay baan kale aqoontii baan soo celinaayo qariyaqaan ka soo meeran oo qayileen oo qaad cuneen oo magasaneen caaqil oo magasaneen suldaan oo magasaneen qabyaalada cilmigiisa aqoontiisa magasanayaan keenna insha Allah ta'ala dad aqoon leh ayaanu keenna laga bilaabo directorka ilaa wasiirka oo qofka soo meeshiisi garanayaan keenna insha Allah ta'ala waxaanu burburinayna qabyaalada intaanu qabyaalada burburinayaan qoomiyad dhisna insha Allah ta'ala waxaanu ka qabtirnaa dadkeena waalaya caafimaadka waxbarashada biyaha ilaydka shaqada dhalinyarada halka joogtay suuqa iska taagan waxaan jecelahay markay tahay maalintii 9 subaxnimo ilaa iyo 2 markay tahay in la yiraahdo war dadkii magaalada may ka baxeen oo dadku suuqa taagna ninka soo xafiisiisa shaqadiisa iyo gabar kasta ay joogtaan doonina waalaya oo la yiraahdo magaalada banda ka dhacay ayaan doonaa
waxaan doonaa waa inaan daadejino inaan awoodda daadejinaan doonayna oo meeyarku awooddiisa yeesho oo tuuladu awooddeeda yeelato oo aynu dhisno ummad siman oo cadaalad ku siman oo ku siman biyaha u siman oo sharci ku shaqeysa wala sharci waan ka tagnadaan Soomaaliland maanta sharci ma shaqeeyo waxaanu shaqeynaa walaalayaal inaanu haweenka wax barno reerkii 3 gabdhood wax ka badan geeya iskuulka geeya inaanu dhaqaalahooda kabnaan doonaa insha Allah taala waxaan doonaa walaalayaal inaanu mujaahidiinteeni qof kastaba guru dhisnaan doonaa insha Allah taala inaanu hay'ad u sameeyno daryeelka dadkii veteranka SNM tahay in u sameeyno daryeel sameeyno doonaa waxaan doonaa walaalayaal inaan booliiskeena iyo militarigeena ay haybad yeeshaan walaalayaal inaan walaalayaal ninka halka taagan traafigada ah ee miskiinka ah ee yaashaar ku cadaaday waxaan doonayaa inaan lacag gunno oo dheeraada siinaan doonaa insha Allah taala ayna kalaamay waxaan doonayaa waa insha Allah taala lacagta lagu qayliyo ee isku qayliso dawladdu ku qayliso baabuurta la bixinayo laaluushka loo bixinayo inaan dadka gelino oo daryeel ku sameeyaan doonaa insha Allah taala walaalayaal waxay ii sheegay walaalayaal maanta haday naga murkacato oo Soomaaliland gacan xun ay gasho doorasho soo socota Soomaaliland Ilaahay ma gelin subhanahu wa ta'ala khatar baa ku jira insha Allah walaalayaal qabiyaad wax lagu wadi karo walaalayaal tolaayo wax lagu wadi karo walaalayaal maanta waxaad ogtihiin caruurteeni oo baxeeni jaamacada ka baxay waa dhisarkii tagay walaalayaal ogtihiin dadkeeni bukay ee caafimaad ku socday waatan kule inuu booliska ku guumaysta oo dhaxla ku baabiyo walaalayaal waxaan jecelahay walaalayaal dawladda Itoobiya waa la xisaabtamina 700 oo milyan ayay inaga qaataa inaga hesha walaalayaal waxay inaga qaataa wala caafimaad baan u tagnaa waxaan u tagnaa walaalayaal cudurradan ka kaysana waxay keenan qaadkay keenan wax kasta way keenan irbad ma geeyna walaalayaal subhanahu wa ta'ala waxa tog wajaala jooga kootormaan bay ku gali jireen kootorbaanka waa laga jaray dhaqaalaha ma laynoo dagaalamay inaguna qaar baynu ku jeednaa iyo habar baynu ku jeednaa waa la inoo tashaday rag baa shaaruba inoo xeeqaya oo doonayna ciid afka inoo geliyaan annaga insha Allah taala ucud baa qaali doonta ucud baa u ceelin doonta innaga u helin doona walaalayaal annagu walaalayaal sidaasaan Soomaaliland aan ugu ilaalinaa waxaan nahay raadaarka Soomaaliland ilaaliyana haddaan u cudnahay walaalayaal midka soo dhuumanaya raadaarkayga qabta qabtay baan ilaa amba gudaha noqdo amba ha noqdo mid baan sheegay walaalayaal anigu dawladda ma taageeray dawladda waxa ku jira wadani baa ku jira dawladda kamida laakiin anigu qarankan taageera kala saara taareeda qaranka iyo taareeda dawladdana maanta iyadoo waa iska tabcaan wax laga mucaaradaaba ma jirta siya waxaan doonaynaa si yar nabadgelyo kulmiye iyo korneelkooda iyo madaxweynaha iska fayay inaan nabadgelyo nilaaban doono insha Allah taala korneelkan waxa leenahay waqti korneelka maahe waa korneelka SNMT waa wad geysata shaqadaadii adoo waqtiga iska naftaa waa waqtiga oo leenahay Abdurrahman waxa leenahay agaburur baa tahay maanta waa maalinteena waa maalinteena insha Allah taala waana badbaadada qaranka way waa badbaadada qaranka waa ya dawlad tayo leh oo haybad leh ma dhisina caaqilkina waxaan leeyahay caaqilkii laha ay kaadi caaqilkii laha maxad odayaa lagu keen weyday anoo nin cawqaal wata meehi nin Suudaan hogaamiye meehi waa kuwa shacbigay waana waxay hogaaminayaan Soomaaliland ha noolaato ilaahay cadaween ha jabiyo Soomaaliland ilaahay subhanahu wa ta'ala khayr ha siiyo qaatumo iyo heshiiskeena ha noolaado ilaahay subhanahu wa ta'ala cisigeena inoo soo celiyo sharifteena ku noqonaa wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh